asxaabi kusoo dhawaada jiranka maxamed yare wankee sabtaraynigaasi daawasho wacan. waxay ku xidheen meydka kursiga baabuurka kadibna si ula kac ah ayay u burburiyeen gaariga. markaas ayay hubiyeen lafaha jabay kadibna mar kale ayay ku celiyeen habkaas 100 jeer iyaga oo isticmaalaya meyd dhab ah. magacaan miyuusan u qalmin in la faafiyo? haddii aad jeceshahay magacaan sii sheer garay cilmi baarayaashu ogaadaan qaybaha jirka ee u baahan ilaalinta ugu badan marka shil dhaco si ay u horumariyaan habab iyo qalab badbaadin kara darawallada marka ay dhacaan shilal dhab ah. si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa ka soo horjeestay sida meydadka loo isticmaalay. inkastoo inta badan lagu beddelay mannequinska shilalka carash dummies, haddana kooxo gaar ah ayaa weli mararka qaarkood u adeegsada meyd cilmi baaris la xiriirta badbaadada. wuxuu ka helay sanduuq qarsoon safe gudaha bakhaar uu ku iibsaday xaraash kadib markii uu bixiyey 5 eber oo uu ku qaatay wax kasta oo ku jiray. markaas ayuu u yeeray dhowr farsamo yaqaan oo qufulfurayaal ah. ugu dambayna waa la furay sanduuqii waxaana laga helay 7.5 milyan. milkiilayaashii hore ayaa joojiyey bixinta kirada bakhaarka taasoo sababtay in la xaraasho. laakiin markii ay maqleen sanduuqa iyo lacagta ku jirta waxay dalbadeen in lacagtooda dib loogu celiyo. waxay ninka u soo bandhigeen abaalmarin kadib wadaxaajood. ninkii wuu celiyey inta badan lacagtii balse wuxuu iska haystay in ka badan 1 milyan. si kastaba ha ahaatee sheekadan marar badan ayaa dib loo sheegay ilaa ay adag tahay in la ogaado inay dhab ahaantii run tahay iyo in kale. jaban gudaheeda nin ayaa jebiyey weelkiisii uu aadka u jecla. wuu ka xishooday, ma uusan doonayn in cidina ogaato. markaas ayuu u geeyey qof dayactir sameeya wuxuuna ku yidhi fadlan hagaaji si aan loo arkin in uu weligiis jabay. ninkii dayactirka samaynayay wuu dhoola caddeey. ninkii dayactirka sameeyey wuxuu si fudud u yidhi maalin ayaad fahmi doontaa. ninkii weelka ayuu guriga u qaaday isagoo weli ka xishoonaya. laakiin wax lama filaan ah ayaa dhacay. qof kasta oo arkay wuxuu yidhi wow, tani waa weelkii ugu quruxda badnaa ee aan weligeen aragno. habkan waxaa loo yaqaan kintsugi, farshaxan jabaan ah oo lagu hagaajiyo walxaha jaban iyadoo la adeegsanayo dahab. fikradoodu waa dilaacyada lama qariyo, waa la iftiimiyaa. sidaas darteed ha qarin nabarradaada. muuji, sababtoo ah waxay qayb ka yihiin waxa kaa dhiga qof gaar ah. haddii aad aragtay sixiroole dhalo ku baabiinaya bac warqad ah, sirta dhab ahaantii way ka sahlan tahay sida aad u malaynayso. ku bilow dhalo madhan oo caadi ah. si taxadar leh uga jar lakabka dibadda oo ka saar qaybta kore ee dhalada, markaasna ku celi qaybihii la jaray gudaha lakabka oo ku dheji cajalad laba dhinac leh. dhalada beenta ah geli bac warqad madhan. markaad bacda isku duuduubto, dhaladu isla markiiba way baabaysaa. dad badan waxay doortaan kursiga khaldan marka ay baska raacaan. haddii aad fadhiisato gadaasha dambe, badanaa waxaad dareemi doontaa gariir badan, taas oo ka dhigaysa mid aan raaxo lahayn haddii aad rabto inaad hurdo inta safarka lagu jiro. laakiin haddii aad fadhiisato hore, halista dhaawac ayaa ka badan haddii shil foolka fool ah dhaco, sababtoo ah halkaas ayaa saamaynta ugu horeyn ku dhacda. taasi waa sababta kuraasta ugu nabdoon uguna raaxada badan badanaa ay ku yaalaan bartamaha baska. haddii aad ku dhowdahay inaad gasho dagaal waddo, shaygee ku siin lahaa fursadda ugu fiican. dad badan waxay qaadan lahaayeen biraha gacanta lagu xirto, laakiin isticmaalka wuxuu ka dhigi karaa cawaaqibka mid aad uga sii xun. qaar kalena waxay dooran lahaayeen buufinta basbaaska, laakiin dabayshu mararka qaarkood waxay ka dhigi kartaa inay adiga kugu soo noqoto. taasi waa sababta shayga ugu caqliga badan uusan hub ahayn, waa kaba orod si aad uga fogaato dhibka gebi ahaanba. Luis Suarez ayaa dhexda ciyaarta ku ceejiyey difaacii ka soo horjeeday isagoo si buuxda qoorta ugu qabtay. markii uu ugu dambayn iska siidayey, ciyaaryahan kale ayaa si degdeg ah u soo orday oo si toos ah wejiga uga dhuftay, taasoo garoonka ka dhigtay meel dagaal u eg. ay ciyaartoy kale dagaalka ku soo biirayeen. Lionel Messi ayaa isku dayay inuu kala jiido asxaabtiisa si uu xaaladda u dejiyo. laakiin halkii uu ka deji lahaa, Suarez wuxuu u orday tababaraha kooxda kale wuxuuna si toos ah uga tufay wejiga, taasoo sababtay ganaax 6 kulan ah. taageere ayaa qadaadiya ku dhuftay isha ciyaaryahan, taasoo keentay in wejigiisu dhiig baxo. intii uu ka soo kabanayay, taageere kale ayaa gadaal uga yimid si uu weeraro. ka hor intuusan wax samayn, goolhayaha ayaa qabtay taageeraha oo u dhiibay amniga, waxaana markii ciyaartu dhammaatay weeraryahanka lagu ganaaxay 3 sano. ciyaaryahan kale ayaa ku booday taageere isagoo laabta kaga dhuftay kabaha birta leh. amniga ayaa si degdeg ah u soo galay si ay u qabtaan ciyaaryahanka ugana saaraan garoonka. ciyaartoy kale ayaa sidoo kale u cararay taageeraha si ay ula dagaalamaan, taasoo isu beddeshay gacan ka hadal guud. inkastoo taageeruhu ahaa kii hadallo xun bilaabay, haddana ciyaaryahanka waxaa lagu ganaaxay 9 bilood. mashiinadii ugu horreeyey ee lagu ordo treadmill looma samayn jimicsi. waxaa loo adeegsaday ciqaab. maxaabiista ayaa saacado badan ku socon jiray iyagoo wareejinaya giraan weyn oo shiidi jiray hadhuudh ama biyo tuuri jiray. shaqadu waxay ahayd mid aan dhammaad lahayn, 1 eber saacadood maalintii si keliya loo daaliyo maxaabiista. qaar xitaa way u dhinteen dadaalkaas. dabayaaqadii 1 eber meeyadii, dadka ayaa garwaaqsaday in ay aad u naxariis darro tahay. sidaas darteed treadmillka waxaa laga mamnuucay xabsiyada Britain. laakiin 1 eber meeyadii mar kale ayuu soo noqday, markan sida qalab jimicsi. maanta malaayiin
laakiin qof ayaa si ikhtiyaari ah ugu socda iyagoo aan ka warqabin taariikhdiisa mugdiga ah. Nin ayaa lagu jiiday qalajiyaha dharka waxaana uu ku xanimay gudaha. Qalabkani wuxuu ahaa qalajiye warshadeed, ninkuna wuxuu nadiifinayay suunka qaada dharka ee mashiinka gelinaya. Laakiin markii uu fuulay si uu u gaaro meesha xanibaadu ka jirtay, ayuu ku dhex qabsamay dharka, mana jirin cid caawisa. Heerkulku wuxuu ka kor u kacay 3 darajo, 2 daqiiqo kadibna shaqaalihii kale ayaa helay meydkiisa. Tuugu si ula kac ah ayuu kugula dhacaa si uu ketchup ugu daadiyo jaakadaada. Markuu ku yidhaahdo waan kaa nadiifinayaa, waxaad u malayn kartaa inuu wanaag samaynayo, laakiin taasi run ma aha. Isla marka uu bilaabo nadiifinta, wuxuu hal meel ka riixayaa jaakadda si uu dareenkaaga u mashquuliyo, halka gacantiisa kale uu jeebkaaga ku gelinayo. Intaad ku mashquulsan tahay wasakhda qoyan, ma dareemi doontid inuu si degdeg ah uga qaadanayo taleefankaaga iyo boorsadaada. Sidaas darteed, iska diid caawintooda oo adigu iskaa u nadiifi. Markaad qadaadiye ku tuurto ilbiyoodka, halkaas kuma sii nagaato weligeed. Marka dalxiisayaashu tagaan, shirkad ayaa isticmaasha qalab nuugaya si ay u soo ururiso dhammaan qadaadiicda oo bacaha ugu rido. Kadib baabuur qarsoon ayaa qaada lacagtaas oo bangi dhiga, taasoo ka caawisa inay helaan in ka badan 5 milyan si loogu quudiyo fardaha. Markaad wax ka iibsanayso supermarket, waxaad u malayn kartaa in cuntada dhici doonta la sadaqeeyo dadka baahan. Laakiin marka albaabadu xirmaan, maamulaha ayaa shaqaalaha ku amra inay soo ururiyaan dhammaan cuntada taariikhdeedu maanta ku eg tahay. Halkii la siin lahaa shaqaalaha ama lala shaqayn lahaa bangiyada cuntada, waxay ku ridaan bacaha qashinka. Sababtu waa cabsi laga qabo in haddii la bixiyo oo qof xanuunsado, dacwad lagu soo oogo, sidaas darteed way iska tuuraan.